shirka maanta laascaanood la leeyahay waa laga wadaa anigu meel laga tashaday ma ogi meel wax la isaka weydiiyay ma joogin meel lagu go'aansaday ma aanan fadhiyin 15 sanaan arintan daba socday god kasta ay gasho waan garanayaa war waxaan u baqayo waxa weeye SSC Khaatumo in la dibindaabiyeeyo oo god ayan ka soo baxayn bari lagu rido kulanti wacan wanaagsan daawadayaal war degdega wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Laascaanood ayaan caawa eegi doonaa shirki lagu ballansanaa in berrito uu ka furmo magaaladaasi ma furmi doonaa caawa waa maxay kulamada xasaasiga ah ee ismada dhaqanka iyo hogaanka ugu sareeya maamulkaasi ay ka fureen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ma lagu heshiiyay shirki ka dhacay magaalada Laascaanood caawa ee gogol xaarka u ahaa shirka la doonayay in berri lagu qabto magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool garaad jaamac garaad calina caawa seefta ayuu gasha kala baxay waxa uu sheegay in uusan ogeyn meesha lagu iclaamiyay shirka la doonayo in berri lagu qabto magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hadaba hadalka ka soo yeeray garaad jaamac garaad cali dib miyuu u dhigi karaa shirka la filayo in berri uu ka qabsoomo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool garaadadii SSC Khaatumo waxay u muuqanayaan in ay ka baxeen garabkii hogaamiyaha SSC Khaatumo Cabdulqaadir Firdhiye hadaba waxaanu eegi doonaa caawa wararkii ugu dambeeyay xogaha xasaasiga ah ee ka imaanaya magaalada Laascaanood iyo xaaladdu sida ay tahay hadaba hadii uu ku soo gaaro muuqaalkan like dhe sidoo kale si share garay qaybaha commentigana aragtidaada nugula wadaag iyo waxa ka soconaya caawa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan ku bilaabayaa garaad jaamac garaad cali oo kamid ah ismada dhaqanka iyo waxgaradka maamulka SSC Khaatumo sidoo kalena ah garaadka guud ee SSC Khaatumo oo ay ka go'do talada oo caawa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa afka furtay waxa uu sheegay in gabi ahaanba uusan ka warqabin shirka la doonayo in berri lagu qabto magaalada Laascaanood halka lagu go'aamiyana shirkaasi taladiisa uusan waxba ka lahayn sidoo kalena uusan doonaynin xilligan in markaasi shir uusan ka warqabin uu ka dhaco magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararkii ugu dambeeyay ee caawa ka imaanaya magaalada Laascaanood waxa ay tilmaamayaan in hadalka garaad jaamac garaad cali kadib in magaalada Laascaanood ay ku kulmeen ismada dhaqanka iyo sidoo kale hogaanka ugu sareeya maamulka SSC Khaatumo waxaana la go'aamiyay ugu dambeyntii in SSC Khaatumo kulankeeda berri uu dhaco sidoo kalena ismada dhaqanka iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hogaanka SSC Khaatumo inay meel iskugu yimaadaan sidoo kalena magaalada Laascaanood looga wada hadlo sida lagu dhameystiri karo hogaanka SSC Khaatumo iyo sidoo kale maamulka curdunka ah hadaba garaad jaamac garaad cali caawa seefta ayuu gasha kala baxay waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in qalalaase laga sameeyo magaalada Laascaanood laguna murmo dhameystirka maamulka curdunka ah ee SSC Khaatumo sidoo kale waxa uu sheegay in uusan ka warqabin meel lagu iclaamiyay shirka la doonayo in berri laga furo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasi oo dawladda federaalka Soomaaliya ay garwadeen ka tahay hadalka garaadka markii uu soo yeeray kadib waxa falcelin kala duwan ka sameeyay bulshada ka soo jeeda SSC Khaatumo iyo sidoo kale bulshaweynta Soomaaliyeed waxaana garaadku uu sheegay in wax walba oo looga tashanayo aayaha SSC Khaatumo in ay diyaar u yihiin in la fuliyo sidoo kalena aysan hor istaagi doonin shirka looga tashanayo aayaha SSC Khaatumo laakiin uusan ka warqabin shirka la doonayo in berri lagu qabto magaalada Laascaanood hadaba aan isla daawano garaad jaamac garaad cali iyo waxa uu ka yiri shirka berri la doonayo in lagu qabto magaalada Laascaanood kaga hadlaya buuqan iyo khalkhalkan dadka la dhexgeliyay Soomaalidu waxay tiraahdaa reer gurafaa iyo caruur waa loo kala sheekeeyaa waxaan rabaa insha Allah taala inaan ku cadeeyo warar la isla dhex marayo oo aan sal iyo raad lahayn in aan waxa ka jira iyo sida ay wax yihiin inaan ku bayaamiyo dadka reer SSC Khaatumo waxa axdiga ugu qoran ayna ku ballansanaayeen 2 sanadood kadib inay shir isugu yimaadaan ay ku tashanayaan ay kaga baxayaan ku meel gaadnimada ay ugu gudbayaan maamul buuxa
shirkaas oo intii SSC Khaatumo ay dhisatay ay isugu imaan lahaayeen waxa la leeyahay garaad jaamac shirkaas uu diidan yahay shirka ma diidani waan soo dhaweynayaa waa shirkii la sugayay waa shirkii dadkani ay ku tashan lahaayeen waa shirkii ay ku go'aansan lahaayeen meesha ay aadayaan iyo marxaladda ay u gudbayaan oo u cad oo ah maamul buuxa oo iyagu leeyihiin inay samaystaan waxa aan diidanahay waxa weeye waxaan la isla ogeyn aan dhammaystirayn khatar gelinaya wixii dadkani ay lahaayeen ee qiimaha faraha badan ugu fadhiyay dhibka faraha badan loo soo maray dadka badani ay u shahiideen in maanta khalkhal la geliyo oo waxaan la isla hubin iyo waxaan la isla ogeyn iyo waxaan laga tashan lagu dhex tuuro shirka maanta laascaanood la leeyahay waa laga wadaa anigu meel lagaga tashaday ma ogi meel wax la isaka weydiiyey ma joogin meel lagu go'aansaday ma aanan fadhiyin dabcan soomaaliduna waxay tiraahdaa reer maad haddaan ka hore iyo ka dambe iyo ka dhexe isu baaqin way kala lumaan taasi ma muuqato mana ayan dhicin waana waxa keenay khalkhalka iyo dhibaatada dadkani meesha ay joogaan maantana waxa ay ku soo gaareen midnimo ku timid wada tashi Soomaalidu waxay tiraahdaa haddaad aragto arrin dhammaan weyday ama meesha wax ku jira waxaan ku jirin baa la gelinayaa ama wax ku jira laga saaraya waxaanu leenahay dadkani waxay wax ku yihiin wada tashi bay wax ku dhisteen wada tashi bay kaga gudbi karaan xaaladda ay ku jiraan waxa ay go'aansadaan iyo maamulka ay qaataan baana cid walba ay ku khasbantahay hase yeeshee anigu wixii aan shalay diidanaa ee ahayd tala meel kale la iiga soo raray la igu dhiqi maayo dadkayga loogu talin maayo ee aan 15 sano ka dagaalamayay maanta ma ogolaan karo reer walaalahaya oo dariskayga ah inaan ku sameeyo kamana mid noqon karo warsangeli waa walaalahayo waa dariskayaga dan baanu ka leenahay duruufahayagaa isku xidhan uma quudno in aanu niraahno annagaa idinka xulanayna idinka yeedhanayna idinku talinayna ee idiin joojin mayno dhaqankiina iyo odayaashiina iyo waayeelkiinana waxba weydiin mayno nagama qabato kulama dhici karayno wixii aanu shalay annagu diidanayn inaanu iyaga ku samayno walaalayaalow naga raalli ahaada arrintaasina arrin annaga naga suuragal ah maaha arrinka la isku maandhaafsan yahay waa intaynaan cid kale ku xadgudbin dambi iyo godob aynu tol bari aynaan ka maarmayn aynaan ku samayn inagu aynu tashanno wax isweydiinno cid ina khasbi kartaa ma jirto waa reality SSC Khaatumo meelna uma socoto meelna ma aadi karayso inagu waxeena aynu si mugla uga tashanno cidda aynu doonayno aynu si mugla ugu tagno ula tashanno kaga helo haa iyo maya haddaynu niraahno waanu isku dhex khaldaynaa warteena khatar galaysa teena dhibaato ku imaanaysa wax ina khasbaya iyo cid gacanta ina maroojin kartaa ma jirtee aynu wada tashan talawiyeera loo dhan yahay dhinacyada laga fadhiyo walaalayaalow taasaa ina deeqda taasaa meel ina gaarsiin karaysa
tii kale kalaba ee gacanta laynagu maroojinayo laynagu khasbayo haddaydan sidaa maanta yeelin layna leeyahay waxaanu idinla doonaynaa waayeysaan war waxaanu u joognay kun beenood oo noloo sheegay 15 sanaan arrintan daba socday god kasta ay gasho waan garanayaa war waxaan u baqayo waxa weeye SSC Khaatumo in la dibindaabiyeeyo oo god ayan ka soo baxayn bari lagu rido SSC way jiraysaa wayna jiri doontaa insha Allah ta'ala markii uu hadalka jeediyay garaad jaamac garaad cali kadib waxay u muuqanaysay in tala ay fara ka baxday maamulkii SSC Khaatumo garaadadoodina ay isku raaceen hal dhinac halka Cabdulqaadir Firdhiye iyo dawladda federaalka Soomaaliya xubnihii golaha wasiirada ay ka socday ee halkaasi tagayna ay gees isku raaceen laakiin wada hadallo dheer oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka dhacay kadib waxaa lagu go'aamiyay in shirka magaalada Laascaanood lagu qaban lahaa magaalada maalinta berita ah in uu qabsoomo waxaana kulan weyne iskugu yimid isimadii dhaqanka waxgaradkii qaybihii kala duwanaa ee bulshada iyo sidoo kale hogaankii SSC Khaatumo ee Cabdulqaadir Firdhiye waxaa lagu go'aamiyay shirkan oo gogol xaar u ah shirka berita dhacaya in shirka beri si rasmi ah uu furmo sidoo kalena xaaladda la dejiyo sidoo kalena ay isku imaadaan qaybaha kala duwan ee SSC Khaatumo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool beri waxaa ka dhici doona shirka ayakatashiga maamulka SSC Khaatumo kaasi oo lagu gorfayn doono sida ay wax noqon doonaan iyo sidoo kale qaabka markaasi lagu wajahayo dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo markii maamulku meel gaar ah hoggaankiisa ee markaasi laga yagleelay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa lagu ballamay sida garaad jaamac garaad caliba uu ka dhawaajiyay in muddo 2 sano ah uu shaqayn doono maamulkaasi Cabdulqaadir Firdhiye ayaa hoggaan looga dhigay sidoo kalena waxa la sheegay in 2daasi sano kadib lagu kulmi doono magaalada Laascaanood shir looga tashanayo dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo maanta waxa ay taagan tahay qabashadii shirkaasi iyadoo maalmihii la soo dhaafay markaasi dood badan ay ka taagneed hanaanka shirkan uu qabsoomayo laakiin ugu dambeyntii caawa warka ka imaanaya magaalada Laascaanood wuxuu tilmaamayaa in lagu heshiiyo guud ahaanba shirkaasi sidoo kalena beri shirka si nabad ah oo u qabsoomi doono haddaba sidee u aragtaa shirka beri ka dhacaya magaalada Laascaanood iyo dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo like sar muuqaalkan sidoo kale sii share garay si saaxiibo adigu kula mid u gaaro subscribe na dhabugan si aad ula socoto xogaha iyo macluumaadka mar walba halkan aan ku soo gudbinayno waa maasantiin soo dhawaada saaxiibayaal habeen wanaagsan